بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي وياي هذا النور قال وعن ربا إن كليب يرهلك عن كتبه وشوا قبل كمدو قال كعيو كليب كاسوها ويبحث كتير قال كعيو أو لينكي قبورها قدن شري حسن برف الأورنجري أو عيال كسر صافي وعينا كقرانيان أو وحكة إلنا عن الأرض dhibaatadaas suuqaalka iyo waxay ku haysaa fara kulul waxaan codsanayaa dawladdu inay ka howlgasho gobolka mudug haddii aan hadda laga howlgelin waxa laga dooni doonaa meel fog annagoo reer Buntland ninkii qabuuraha qodan jiray inuu dhulka yagii iyo dadka yagii urursado wax la qaadan karo maaha iyo waxaan qaadan karno midna ma aha dadka aad gaalka iyo mas'uuliyadda ka ah intooda badan isaga la shaqeynaya waxayna taagan tahay in gaalkaayo gacantayada ka baxdo waxaan leeyahay hal qof oo gaalkaayo ku dhashay anu gaalkaayo ku dhashay hal qof oo gaalkaayo u dirnacaya oo mas'uuliyiinta gobolka ah oo shaqeynaya ma jiro waxaan ka naxsanahay waxyaalaha ay sameynayaan hadda idaacad kama sheegi karnee cid aan la xiriirno oo warbixinta siino yaan u baahanahay midda labaad oo saddexaysa waxay tahay mudug haddii madaxweynuhu maqan yahay waxa jooga wasiirkii amniga jooga waxa jooga taliyihii booliska waxa jooga taliyihii asluubta waxa jooga taliyayaashii kale oo ciidanka daraawiishta waxaan codsanayaa inay yimaadaan oo gobolka mudug ka howlgalaan haddaysan rabin in meel fog laga raadiyo nimanka jooga markaan niraano wax qabo ama wax qabta waxay yiraahdaan adigu raystaa tahay waxaan ma qaban karin aadan u qaalo 9 sano raysta ah anigii bay hadda waxay taagan tahay ba inay yuraarayaan oo beeniga sheegaan sharciga ay ku shaqeeyaan waxa weeye kuwa Itoobiya ka yimid hebel baan maanta wax ka sheegnay waa soo wanjalo been baa ka sheegnay kaliya ku shaqeeyaan qaarna waa YouTubero idaacadaha ay ka hadlaan bay yiraahdaan noo shaqeynaya idaacad bay ka hadlaan ma shaqeynayaan waxaan codsanayaa gobolka mudug in loo naxo maanta waxay taagan tahay maalintii madaxweynuhu imaanayay oo al-shabaabka la qabanayay waa ka sii fog tahay maanta waxaan codsanayaa si degdeg ah in looga howlgalo gobolka mudug haddaan laga howlgelin waxa laga dooni doonaa meel aan la gaari karin baa laga dooni doonaa maanta waxa kaliibka u duubaya waxa weeye in dawladdu ogaato xaaladda gobolka mudug wax badan oo hadda aan idaacada ka sheegi karin baa jira iyadana waxaan rabnaa inaan ay nala soo xiriiraan oo aan wixii warbixin siino intay ka tageen magaaladii baadiyaha ay hadda ciidan ka qoranayaan nimanka la yiraahdo xasan baraf iyo ciyaal uu soo dirsado buugaag wata waxa meesha joogaana waxay ka qabanayaan lama arko gaalka ay dhexdeeda ay dabrid ka sameeyeen xasan baraf iyo ciidankiisii dabrid bay laga sameeyay oo magaalada lagu barooway qoryo xasan baraf laga keenay baa lagu barooway dadkii mas'uuliyiinta aad uga dhigteen oo meesha joogaana waa fiirsanayeen qaar baana la shaqeynayay waxaan codsanaynaa arrintaa wax laga qabto oo codsiga la tixgeliyo oo taliyayaasha ciidamadu yimaadaan oo wasiirka amnigu yimaado oo magaalada tan sida loo dhaamo haddii ay fogaato waa laga maarmi karaa ina ahayn magaaladan wax laga qabto intaasaan ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.